ayatin laban aburo wadugayde intaan udubkiisa mudaybaan ilaasho waanadkeeye abaydi sidii u dhowre markan kulahaa ugaasooy ujeeda fogu baan lahaa xafiif badan baan lahaa ammaanada dhowr lahaa markuu bixiis gaadhay markuu intifaacsi joogo maxaa urxumaadan keenay maxaa oridaninkadii able lagu saalayaayo weliba shaaraara dunide maxaa eedii xambaarshay isku faahno hodanaysa waxaa jira video aan duubno adigu ma aragtay aad kala garan laad waana xaqiiq inaan kala garan laadahay u sheeg asxaabta bal waxa ka ala kulmay videoga ama dadkii meelaha ka arkay ama waxaad la kulantay videoga bal walaal qaali ka sheekay videogaas waa xaqiiqa waana kala saari waay moogtahay qofka bini'aadankana kamaha oo wax iska caadi labada qof wuxuu ka mid karaa qof moogta sax anigu xisaan baan la sheekaystaa jecelahay xasan baa soo kay qariyay sax markaa dee wax iska dhaca laakiin markii dambe waa fahmay soomaha aakhirkii sax waa yahay maxaad kala kulantay dadka bulshada ma baraankiba ma beenba waxaan ma waxa samaysateanba ma waxa rabtaan ku qaraxdaanba ma sheeko kala ma sheeko fahmaysaa qofkii arkaaba markii telefoonka iga soo wacaaba markaa dee malaayiin qof ma qancin kartid moogtahay markaa waxaan ku yidhi dee qof walba dee waxaan lahaa maya baraanki ma yahayn waa wax xaqiiqaha reeliyahoo dhacay laakiin bini'aadanku dee ilaahun baa qancin kara soma horta waran bini'aadanka allow baa qancin karaa inagu ma qancin karo laakiin halkan maanta waxaan usoo fadhiisanay dadka inta ugu badan waxay leeyihin ma waxaad samaysateen mise waa baraanka moogta marka halkan waxaan maanta usoo fadhiisanay si waxaan wax ay dhacdo ay tahay xuseen nafi uu sheekadan soo wada dhignay balaankan oon adiga kuula imanay taasina horta halkan ka shaacina ugu talagalnay iyo maad aragtay inaan waxyaalahan iyo waxyaalo kale ka badanba insha Allah aan soo wadno taasina halkan soo fadhiisan waa jirti marka balka waran marka kaliya dariiqa sidoo kale maxaad kala kulantay alla waa inantiina markii la garan weeyay inaan sharaaf ya sharaafadana waa nacba sharaaf adduunkan nacba laakiin way u qasabtay dantu inaan sharaaf waatan inantii nabada xal waxaan ka yaabay xitaa wadanay inaad la hadshirabtay telefoonka xasan baa ka qabtay adigu صح xasan baa tiri xuseen codkayga xitaa ma kala taqaan wuu yidhisna sama abbaar markuu kula hadlay dabadeedna uu qosqoslay maxaad ku qoslaysaa maanta codkayga baad garan weyday صح ma garan dee ma yani subxaan allah cod ha noqoto weji ha noqoto yani kalar ha noqoto hal isleeka dhan walba dee waa ka dheeli tirantiin marka waa lagu wareerayaa gabar kale wala khalkhal ka badan dabcan qasab way manaysaa in gabar lagu helo way noqonaysaa talabaad adiga laftigaagu markasta inaad dumaashada ka xaraabaysatid waa laga qofbaday may xaraabada horta waa wax meesha iska taal waa jirta way Soomaalidu waxay ku wareereen inta badan baraankigu horta dhulka kale si wax u sameeyaan sida wax macquul laakiin Soomaalidu waxay ka soo tashadeen oo laga soo mudoobay u sameeyaan ma garata waa jirta marka kani aan kugu sameeynay Soomaalida baraanki ka duwan waxa Soomaha wallahi billahi si xun baa ay gasheen ya horta waxa dab markay tahay oo la isku ogay ay dab tahay waxa samaynayay dadka wareer dee hada aniga waxaan wareerkaas kaliya inaan anigii baa wareeray waxaan ku yidhi bini'aadanka hadda isku haystee leen waa baraanki iyo been weeyaan anigii baa wareeray maskax xanuun igu dhaca igu sameeyay mid kale arrinka aniga inaad ii sheegtaad rabtay sirtii oo dhammaan la wadaagtaa maxaan la wadaagu ay dee qalbigu waa miskiin para asxaabta maxay daanay waa soo koobaynaa waqtiga yar
barnaamijkana mid joogsanay maaha filimku uu socdaa baartiyo badan buu yeelan doonaa si qurux badan baana loo soo jilayaa waxaan leeyahay asxaabta amoogaanina ana naga daalina dhiirigelin bay noo tahay subscribe-tiina like-tiina sheertiina xasan adigana maxaad ku darsanaa anigu waxaan ku darsanayaa horta ummadda muslimka meel kastay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum inta bugtana allah caafiyaan leenahay inta caafimaad qabtana waxaan leenahay allah u siyaadiyo waan jecelnahay si intaan jeceshayn in ka badan annagaa jecel mar walbana waxaan ka shaqaynaa dhiirigelintiina iyo dadaalkiina iyo suuq waxaan weydiinaya xasan iyo xuseen su'aal baan weydiinaya jawaab idinkii hadda laba nin oo soo eegbaatiin soo ma daana bay sirteen bataas leena daliil kale ba loo hayo aniga ba taagan soo ma ka waran gabdha sidaas oo kala ah tolo adduunka ma jiraan oo iyagana ragga wada khiyaameeyo intay waxaan ku yidhi laba gabdhood oo mataana wada dhashay intay hal nin maxaan ku dhahdaa mid shukaansato qalaayo tagto way jirtaa horta anagu waxba xasuusisay jabuuti laba hablood oo mataana oo yaan mar baranay labada hablood annaguna maan kala aqaanin iyaguna lama kala anu habeen waxa dhacday inaan dumashada gacanta iska qabsado inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun aniga ku dhacday waana iskala sii socda ay gabadha kale igu soo baxay halkee yaan la sheegsan xaaja halkee tagaysa halkee tagayna noo bandha xaajiga waaba هذا حبيت وانا قوضنا قلت يا شدا بقولت كبد احسن بدت لا حسن oo taydi isaguna ku soo orday yaa ka qabtay oo joogso oo taydi taad waa halka joogtay inna lillahi awraga lagu dhac marka way jirtaa marka filin idinka idinku soo dhacay dhowr jeer ayaa maxaan ku dhadaa aniga inay igu samaysay taban waa aarsan doonaa sheeka xasuusa ay xasuus ku keentay maanta filimkii sheekadii maanta ninkan ka hadlaynay mara sheekadan kugu sameeyay anagu labadeeda ayuu nina saaxiibno maxamuud leeran kan soo ka salaamay ayaa maanta xasuusi wuxuu leeyahay oo mar hadda qorban saas oo kala sameeyay sheekadii buu leeyahay halkan hadda qudusina ku sameeyay sax maanta xasuusi ma garatay marka horta mataanu hadday yihiin mataanaha caqabado fara badan ayaa lagala kulmaa been maaha wallaahi billahi mataan iska ilaaliya aniga hooyaday labadeeda marka caana la siin aniga halkan barku lahaa sax marka inta ka yar hooyada loo sheekaysay inay bay kala garanayeen wallahi markaan soo dhalano barbaan anaga kula bes bartaas ku kala bartaas lagu galsay heer imika hadan hooyadii waxa ka taagay waxay bay joogtaa imika codkayga kala tahay iska damuuqay ma sha Allah hooyo barnaamijkuna waa barnaamij qurux badan inaan sii dheereyno oo la dhaafo ma rabno una soconay barnaamijyada wajigaygu soo muuqan doona asxaabta intaasaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena qurux badnaa sidaas iyo nabadgelyo